shalayto halkan aan joognay 3 bilood ka hor ma ahayd maaqan halkan aan joognay halkan aan campaign ka sameynayna hadda meeshii baan joognaa oo ku soo laabanay macnaheedu waxa way dadkan ku soo laabanayna dadkan aan dirsaday adinkaan dirsateen shalay miisaskana idin fadhinay waxaan idin leeyahay ma taqaanaa madaxweyne xasan sheekh qala sii codka isaga dadka ugu fiican waan aaminsanahay dadka ugu fiican inta meesha joogtay inuu ugu fiicnaa baan aaminsanahay wiilal Soomaaliyeed waaye laakiin ugu fiicnaa baan aaminsanahay haddana waxaan rabnaa inaan proof garayno oo cadeyno inuu fiicnaa inaan cadeyno rabnaa waxaan u taaganahay waxa waaye wixii u taagnaa in la saxo waaye marka deertaan oo la yiraahdo wixii ay la hor nimid waa idin barinay telefoonada kula hadalnay miisaskiina soo fariisanay shaahan idin la cabnay waadada waa la hadalnay qof walba waa la hadlaynay marka ma dhuumanayno sida uu yiri kabiirku in kama tagayno idin la joogaynaa haddii qolo oo maaragtay Facebook ka soo dhaxli jirtay jirto annaga horteena soo istaagayna marka waa idin soo istaagayna waa idin la joogaynaa bulshadana ka nimid ayadaana dhex taagnaanayna insha Allah ta'ala di ilaahi yiraahdo waxaan u nimid oo u qaadanay mas'uuliyaddan waxa oo ay inaan wax ka soo saarno oo wax ka bedelno wax sababtu waxa weey waxba nala xumaa 5 sano wadankan waxba nala xumaa waxa ka socda ciyaar baan u haysanay niman iska ciyaarayna meesha joogaan oo ku falaadaya dawladnimadii ku falaadaya inay ahaayeen waana ku qanacsanahay dad badan inay saas u arkaan dawladnimada lagu falaaday oo iskoolowida laga dhigay lagu barbaranayay marka waxaan isleeyahay hadda inaan kabiir ay yimaaday wax badan laga filayaa wax laga bedeli doono oo aan wax badan la qaban doono sidoo kale kalsooni waxaan ku qabaa waxaad sheegteen wasaaraddan ama wasaaradahani dhammaantood haddii aysan jirin hoggaanku wadanku waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo aad iyo aad waxaan u hubaa kalsooni ku qabaa inta aan ka sheekaynay inay qabaan kalsooni weyn aan ku qabaa haddaanan ku qabin xilkaan maanan qaateen sababtu waxa waaye you set up yourself for failure haddaad xil iska qaadatid oo aadan hubin hoggaankaagu inuu kugu vision yahay kugu aragti yahay yani ma qaadan kartid sababtu waa soo fashilmaysaa anigana soo fashilmaan rabin marka waxaan idin sheegayaa hoggaanka wadankuna sida uga fakarayo cadaaladda iyo dastuurka iyo meeshii uu joogto ayaan dareemayaa sidaas ayaan ku qaatay oo aan maaragtay ku aaday insha Allah ta'ala guulana waan rajeynayaa degdeg in laga dhalin karo inta sida adinku uga haydeen yani u samasaadsanaysiin